haddaad rabto bini aadamku inuu warkaaga aqbalana waxa laga yaabaa rag badan inay hayo waan lay maqlin salaanta waxaanu sheega ma maqasho carruurtu ma maqlaan dabeetana guriga markuu soo galo waa awaamir iyo dagaal haddaad rabto in dadku caqligoodu ku aqbalo waxa ka horeeya qalbigooda inaad furtid qofkaad qalbigiisa furi kari weydid caqligiisa ma furi kartid qalbiga maxaa lagu furaa alxanaan walxub walkalima ayiba qofku aad si fiican ula hadasho tusaale yar carruurteennu guriga waa ka sii cararaan markay kindergarten xadaanada meesha carruurta lagu hayo iyo iskuulkiiyo way jecel yihiin maxaa jira iskuulka markuu soo galo ama ka yari markuu xadaanada soo galo ee habarta joogtaa dhunkanaysa intay u fadhiisato ayay hag siinaysa laabta u saaraysa dabeetana waa soo dhaweynaysaa waa fadhiisinaysaa dharbay ka bixinaysa markuu ka imanayana hag bay soo siinaysaa adiguna markuu guriga soo galana fadhiiso war baad ku bilaabaysaa dee iyadu kaa jeclaanaya hadday saatay waxaan uga jeedaa qalbiga qofkaa la furaa dabeetana caqligiisa kuu furmaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli walidaalik buu la kaftami jiray haweenkiisa oo erayo uu kula cayaarayo ugu yeedhi jiray yaa caa'ish buu odhan jiray caaisho ugu soo gaabiyey yaa xumayra ya bnata sadiiq waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam xad ay biyaha markay qabaysanayaan biyaha meel qura intay wada darsadaan uu isna dhankiisa ka boobo iyana dhanku ay tidhaahdo intaa iga tag ay ku tidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam idan waxay caaisha tilmaamaysaa xataa inuu la beratami jiray inuu la beratamay nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa iyadoo ciidan lala socdo uu ka soo yaro hadheen oo iyada iyo nebigu ay soo hadheen ayuu la beratamay markaasay ka dheeraysay beriga inanta yar ahayde fududayd beri dambe waxoogaa ay cuslatay buu yihi kaale waa beratamaynaaye wuu la beratamo markaasuu ka dheereeyey tilka bitilka buu nebigu yidhi taa tii u tuur buu yidhi maantii horena ada iga dheereeyey maantana ana kaa dheereeyey yacni waxaad qiyaastaa nebi moxamed oo nebiya oo rasuula oo ilaahay uu ka doortay bini aadamka oo dhan oo ummad dhan madaxweynaheeda oo inan yaroo 12 jira la beratamaya caaisha wuxuu nebigu ka dhintay iyadoo 18 jira inan yaroo 12 jira la beratamaya waxay tilmaamaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qaabku uu la noolaa reerkiisa ilaa xad caaisha la weydiiyey nebigu markuu guriga joogo muxuu qaban jiray waxay tihi kaana yakuunu fii mihnati ahli faidaa xadarat isalaatu yatawada yakhraj ila salaa dee reerku u shaqayn jiray bay tihi markuu guriga nebigu joogo intuu boqor iska dhigo meel fadhiisto waxa ha la soo qabtuun muu odhan jirin reerka shaqadiisii wax ka qaban jiray bay caaisha leedahay dabeetana haddii salaada la aadimina intuu weysaysto ayuu bixi jiray caaisha waxay tilmaamaysaa xadiidka hore saxiix muslimku ku yaalla mid kaloo imaam axmed uu warinayo maradiisa isagaa tolan jiray bay tiri oo kabtiisa isagaa yeelan jiray oo waxay raggu ka qabtaan guryihiisu ka qaban jiray bay leedahay yacni hawl midnaba iskama weynayn jirin saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahy ina min acdama alumuuri ajra annafaqatu cala alahl ragga barh baa dabadda ku gacan furan gurigana ku gacan adag nebi maxamedna wuxuu leeyahay arrimaha ugu waaweyn ajar ahaan waxaa ka mid ah nafaqadaad ahalka siisuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam walidaalika ayuha alaxiba imaam albukhaari wuxuu leeyahy haweenaydii nebiga safiya si ay awr u fuusho lowgiisu u dhigay inay isku dul taagto si ay awrka u fuusho yacni isaga sallaan isaga dhigaya markaasay nebi maxamed intay dushiisa isku taagto ayay awr fuulaysaa waxaad ka garan kartaa siduu ula dhaqmayey khadiijo dhimatay haweenaydiisii hore ee dhimatay radia allahu canha wa ardaaha ayuu iyadoo dhimatay buu dadkii iyo dumarkii iyo dadkii ay asxaabta la ahaan jirtay ayuu weli hadiyada u dirayay khadiijo ma noola laakiin xidhiidhin uu xidhiidhinaya iyada buu kuwii saaxiibadaheed wax u dirayay waxaan leenahay dhaqankiisu guriga markuu joogo kaasuu ahaa goob dagaal iyo meel rag isku haya markuu joogo geesi aan la loodin buu ahaa
ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام geesinimo caqliyeed iyo mid qalbiyeed ba uu lahaa ama si kale haddaanu nidhaahno geesinimo macnawi iyo mid xisiya ama si kale haddaanu si idhaahdo weliba waxaa laga yaabaa innagu waxoogaagan gaalada halkan jooga inaynu dacwo u fidino oo raganimo kala hortagna daaye in badan oo inaga mid inay salaadana xataa kala dhuumato istiraahdo yaan lagu arkin adigoo tukanaya laakiin nebi maxamed waxaad qiyaastaa isagoo keligiiya oo dunidoo dhan keligii ka hor yimi qof quroo dunidoo dhan waajahaya qiyaas waan cidiba la socon xaafadda ciddii joogtay rumaysay dabeetana bulsho dhan oo mabaadi' kala haysata oo diimo kala haysata oo wax kala haysata waajahayoo leh waa qaldantiin waxaana caabudaysaana khayr kuma jiro ilaahay keligaa caabuda leh quluu laa ilaaha illa allah tuflixu waa geesinimo inaad waajahdo adduunka keligaa geesinimo ka weyn maa jirta qof keligii mabda'iisa adduunka ku waajahaya oo ku dirirsano kala hor yimi oo dhib oo dhami ku soo gaadhay oo wasaa'isha bini aadamka lagu halleeyo oo dhan la isku dayay in lagu halleeyo aliqraa xoolaanu ku siinaynaa madax baanu kaa dhigaynaa kan baanu kaa yeelaynaa waxan baanu kuu samaynaynaa maruu rabshada naga jooji la leeyahay shajaacadiisa xisigaana taasi waa jur'adiisu ugu lahaa iyo suu geesi ugu ahaa mabaadi'diisa wuxuu kaloo geesi ku ahaa caliy bn abi aalib baa wuxuu leeyahay kunaa idaa xamiya alba'su waxmarat alxadaqu اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه هدي دقالكو واتكادا بوليه دقالكو دررتو مركا كولولاتو نبي قانو كو قبنشر نيبويري أنك وحا نوغو قيسين سناؤون كالنبي حقي سوغو حقا وهي نبي حقا دقالك عدو نوغو حقا يبوليه أنس باو حليه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة نبي حابو لي دتك كيو أو رقم في عن أو جيسسا مالي باقيلا يا دي مقالة مدينة بويري دبتنا دتكي وي صابحة ماشي قيلة كي دي علبة لمودية ومل دقال وتاغن مدينة قالا انت ويرر كوهيسا marka qayladii yeedhaba waxa la isleeyahay hadda cadawgii soo galay dabeetana dadkii markii ay soo baxeen ayuu nabigu ka hor yimi calayhi salaatu wasalaam abi talxa saxaabi la yidhaha faras uu leeyahay oo leeda ah oo aan waxba saarayn intuu xadhiga ka furay ayuu intaan dadba soo bixin buu nabigu baxay calayhi salaatu wasalaam dadku markay soo baxeenna isagoo meeshii ka soo noqday buu yimi oo leh lam turaacu isagoo leh waxba cabsanina dhibi ma jirto nabi maxamed baa dadka ka horeeyo intuu goobtii beledu ka yeedhay ama qayladu ka yeedhay tegey ka soo noqday oo saxaabadiisii ku leh ee dhibi ma jirto leh lam turaacu xadiiska bukhaari ku yaala ay laa takhaafu walaa tafzacu buu leeyahay waxba ha cabsanina xasila markaynu eegno nabiga calayhi salaatu wasalaam siiradiisii oo dhan baa tilmaamaysa goob dagaal siduu u joogay halkan seefuu kaga dhacayeen ee dhabanada koofiyadu ka gashay ee ilkaha badh laga dumiyey ee haddana u taagnaa bale saxaabadu albaraa ibnu caazib baa wuxuu leeyahay niman taabiciina waxay ku yidhaahdeen war ma nebigaa ka cararteen taabiciintu dee dagaaladii saxaabada iyo wixii mushkilad qabsatay may soo gaadhin qofkuna waxa aan soo gaadhin inta badan wuxuu is idhahdaa wallahi haddaad joogi lahayd nin ragaad noqon lahayd laakiin saxaabo rag dhaamaa ma joogin meesha hase yeeshee taariikhdu dee waxay warinaysaa marar la jebiyey saxaabada dabeetana intay baraa ibnu caazib saxaabi la yidhahdo u yimaadeen oo ka mid a saxaabada raggii ugu geesisanaa buu ka mid yahay futuuxaadka islaamiga waa raggii hogaaminayey ee goobta halkay ka galaan magac iyo maamuska ku lahaa ayay u yimaadeenoo waxay yidhaahdeen akuntum wallitum yowma xunayn ya aba camaara maalintii xunayn ma nebiga ka yaacdeen bay ku yidhaahdeen wuxuu yidhi waxaan markhaati ka ahay inaanu nebi maxamed cararin ee dadka
qaar iska fudud iyo waxaan hub haysan iyo waxbaba inta iska dhinac galeen tiro badan ayay reer Hawaasan meel u galeen niman gamuunka gaba yaqaana way haayeen adigu waa ciidan iminka meel galay oo madaafiic lagu adqaysiiyey waa madfaci waagaas oo hadee gamuunka la ganayay dabeetana iyagoo iska dhaadayn ba gamuun mar qura sida roobka lagaga dhigay dadkii way yaaceen nabigu calayhi salaatu wasalaam marka horeba baqal buu fuushanaa dee baqalina ma dheeraysaba yani kuma talagelin inuu cararaba muu jeesanine xaggii ciidanku u sii kacay weliba isagoo aan isqarinaynoo leh ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib isagoo leh anigu nebi baan ahay beenna sheegi maayo beenna maaha warkaasi waxaan ahay ina cabdilmualib isagoo leh nebigu calayhi salaatu wasalaam awowgii sheeganaya ayuu ka hor yimay ciidamadii yani waxay tilmaamaysaa dadkuna wuu sii yaacaya isaguna xagga cadowgu u socdaa weliba isma qarinayee kor buu u hadlayaa isagoo sheeganaya inuu nebigii ilaahay yahay subxaana wa tacaala oo ina cabdilmualib inuu yahay isagoo tilmaamaya dabeetana baraa baa wuxuu leeyahy kunnaa wallahi ida axmara alba'su nataqi bihi dagaalku hadduu adkaado nebigaanu ku gaban jirnay buu yidhi ninka nebiga ugu dhow xadiidka kale bukhaaraa warinaya idan ayuha alaxiba nabigu calayhi salaatu wasalaam goob dagaal marka la joogana geesi buu ahaa aan fulaynimada aqoon bal siduu u qalbi adkaaya geesinimada u ahaa qalbi adayga waxaan uga jeedaa si aan cabsi u gelaynin waxaa garanaysaa xadiidkii bukhaariya iyadoo dagaal laga soo noqday oo nabigu calayhi salaatu wasalaam geedu hadhsanayo ayuu nin reer miyii soo galay ciidanka soo dhex maro intuu qaatay seeftii nebigo halkan suran intuu galka kala baxay ayuu isla dul taagay nebigu u leeyay man yamnacni minka waa nebi maxamed oo keligii geed jiifo saxaabadu markii hore geedka u banneeyeen oo is idhahdeen geedka har kale nebigu ha jiifsado oo seeftiisiina ay ninka kale gacantiisa ku jirto oo nebiguna jiifo kana taagan yahay waa wadci qofku uu argagixi lahaa haddaad meel cidlaa lagaa helo oo seeftaadina ay ninka kale gacantiisa ku jirto oo uu kula dul taagan yahay oon raggii ku difaaci lahaana agtaada joogin adna aanad waxba haysanin oo uu leeyahay weliba man yamnacni minka yaa iga kaa dhicinaya oo nebiguna leeyahay allah kalsooni uu rabbigii ku qabo ilaahay baa iga kaa dhicinaya yani waxay tilmaamaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam siduu isugu kalsoonaa iyo inaan cabsida aanu aqoonin xataa iyadoo uu wadcigaa ku jiro uu fadhiyo amase jiifo oo seeftiisii lala dul taagan yahay wadciga caynkaasiyo xataa inaanu digigaxanaynin amase aanu cabsigi ku jirin kadibna ninkiibaa seefta ku celiyey oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxba kuma samaynay waa iska cafiyey waxaan ka warramo garan maayo haddaan sheegna cadaaladiisa إلهي وحط المام يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وارتدوا عدالة سمية بالليل أيضا وأيضا هارفارد يونيفرسيتي كلية دو قانون كي عنوان وقدقين صورين يعني أحسن تعبير عدالة كورمو إن يتهي يقول المام يا نبي عليه الصلاة والسلام وعدالة سمينجري bal anagana cadaaladda haweenka intaynan cadaalad kaleba u gudbin ninkii guriga ku cadaalad sameeya dee xagga kale ka cadaalad samayn karaa haddaad islaamaha iyo caruurta iyo intan u cadaalad samayso insha allah xagga kalena waad cadaalad samayn karaysa dulqaadkiisa iyo cadaaladiisa waxaa ku tusinaya haweenkuu nebigu qabay qaar ka mid ah way masayr badnaayeen qaarkood caaisha masirey bay ahayd iyadaana inaan ahayd intuu nebigu qabay markaasi 2 iyo 3 baynu ka cabanaa waa 9 dumar ah dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam guriga caasha buu yimi isagoo saxaabo kale la socdo waxoogaa cunno ay rabaan inay meesha ku cunaan umu salama oo haweenkuu nebigu qabay ka mid ah ayaa waxay ogeydee guryaha nebigana aan cunno badani oolin markaa waxay istidhi
armo nimanka nabiga la socday rasuulka alayhi salaatu wasalaam ku filaan weyda waxoogaa guriga caasha yaala waxoogaa kale iyana intay soo samaysay ayay u soo dirtay guriga Aisha aragtay Aisha way masayrtayo xeedadii kale la siday intay dhagax qaadabay ku kicisay waa ka kala tuurtay xeedadii kale waa kala jabisay nabi maxamed hortiisa buu ayuu bagaga ku kala yiri rag baa la fadhiya nabiga alayhi salaatu wasalaam Aisha waxay samaysay waa muuqata nabiga hortiisa iyadoo dad uu la fadhiyo xeedadii loo siday bay kala tuurtay labana u kala jabisay ma caaroonin ma qaylinin nabigu intuu raashinkiisa iska gurtay buu wuxuu yiri غارت أمكم هو يدين واهناس طيب صحابتي كيقول النبي عليه الصلاة والسلام هو يدين وما صيرتي أما سواه ناس طيب راشين كيسينا وسكا قرطي لكن هو عدالة سبيه هدانا يسقوا عين كاله حردي كلا شبتين عاشو يسكر ركبه تادي في عنيدنا وقاضي وحولي بي قف كيسيدين راشين كوحولي وعلي قبردي كالنا بهالشيء حردي ده وعلي waxay tilmaamaysaa cadaaladda sidaan u kala soocaynin dadka oo waatii gabadha Quraysh intay waxaday Quraysh ay yiraahdeen nabiga ha lagala hadlo ay yiri waladii nafsi biyadi law kanat Fatimah bint Muhammad laqata'tu yadaha qofka waxaday cid kale daaya haduu ina nabi Muhammad ahaan lahaa gacantan goyn lahaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam waxba ha u shafaaca qaadinina dhaqankii nabiga alayhi salaatu wasalaam meeshanu ka warranaaba meesha kale ka qurux badan iithaarka iyo sidoo wuxuu bixinayay مثلا iyo ihsaanku sameynayay al-Miqdad ibn al-Aswad saxaabiga la yiraahdaa wuxuu yiri aniga iyo laba nin oo kale la socda ayaa nabiga soo waajahnay buu yiri iyadoo gaajal daraadeed aan dhagaa wax ka maqlayn buu yiri yani ahdu saxaaba ee koowaad وسوقحين وسوهجرودين حول iyo wixii haysteen oo dhan waa lagala haray magaalada Madiino yarbay yimaadeen ahlu safa dad badan baa masaajidka nabiga iska joogeen waxba haysanin dabeetana al-Miqdad ibn Aswad wuxuu leeyahay aniga iyo laba nin oo kale anagoo gaajo daraadeed dahabad asmaacuna buu wa absaaruna min al-jahd dhagahana wax ka maqlanin dhaana wax badan ka arkaynin ayuu nabiga isu soo bandhignay buu yiri haddana baryadana waa ka xishoonayeen iyagoo caynkaasiya